Tuulo ayaa waxaa ku noolaa nin xun oo taajir ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u yimid nin beeraley ah si uu u weydiisto caawimaad. Mudane, waxaan u baahanahay caawinaad. Caawinaad noocee ah? Waxaan lahaa beer, beertaydina way iga burburtay. Faamilkaygana waxay rabaan waxay cunaan, laakiinse ma haystaan, baahi ayay u dhiman rabaan. Sideen kuugu caawin karaa aniga? Mudane, waxaad i deemin kartaa lacag aan kuu soo celiyo ama waxaad i siin kartaa shaqo. Mudanihii ayaa wuxuu ka fikirayaa ninkan haddaad lacag siiso waxaa laga yaabaa inuu kuu soo celin waayo, balse beertaada ayaaba u baahanba cid ka shaqayso. Maad beerta shaqo ka siisid? Waayahay, shaqo ayaan ku siinayaa, waxaana kaa siinayaa beertayda. Waxaadna iigu shaqaynaysaa 200 oo dirham. Waayahay mudane. Subaxii xigtay ninkii beeraleyda ahaa wuxuu u soo shaqo tegay beertii mudanaha si uu u falo. Markuu ninkii beeraleyda ahaa hawsha si fiican u soo qabto, ninkii taajirka ahaana wuxuu siin jiray 200 oo dirham maalin walbo. Waxay sidaas xaajada ahaataba, ninkii beeraleyda ahaa sidaas ayuu u shaqaysan jiray, lacagtiisana wuu qaadan jiray. Laakiinse boqorkii wuxuu ku fikiray maalmo kadib, ninkan beeraleyda ah beerteyda waa uu iga shaqeeyay, hadeertaana waxaan uga baahanahay ma lahan, waa inaan iska fasaxaa hadda kadib. Maalintii dambe ninkii taajirka ahaa wuxuu u tegay ninkii beeraleyda ahaa. Wuxuu ku dhahay, waad fasaxan tahay, lacagtaada qabso, beertaan iskaga tag, maalin dambena halkaan ha u soo shaqo tegin. Ninkii miskiinka ahaa oo beeraleyda ahaa wuxuu dhahay, mudane ha iga ceyrin shaqadan, aad ayaan uga baahanahay, nolosheyda wax badan ayay ka bedeshay. Mudane, maxaa qalad ahoon kaa sameeyay, iga raali ahow. Ninkii beeraleyda ahaa wuu iska tegay asagoo aad uga xun arrintaasi. Maalmo kadib ninkii beeraleyda ahaa wuxuu soo fariistay iridii ninka taajirka ahaa. Ninkii taajirka ahaa ayaa arkay, war heedhe, maxaad halkaan u fadhidaa? Soo aniga shaqada kaama ceyrinin, maxaa ka soo doontay gurigayga iridiisa? Mudane, shaqadan ha iga saarin, aad ayaan ugu baahanahay. War iga tag gurigayga iridiisa, dib dambana yaan kuugu arkin, shaqana kuuma haayo, lagama yaabo inaan shaqo damba ku siiyo. Isla maalintii xigtay ninkii miskiinka ahaa meesha ayuu soo fariistay. Ninkii taajirka ahaa ayaa arkay, war heedhe, maxaa kugu dhaco haddana halkaan u soo fariisatay? Miyaad waalan tahay adiga? Maya mudane, ma waalni. Mudane, shaqadan aad ayaan ugu baahanahay, waan u dhibaataysanahay mudane, adiga keli ayaa i caawin kara, ee mudane shaqada igu celi. War aniga soo kuma dhihin wax shaqo ah kuuma haayo. Mudane, xitaa hadday lacagtaas kuugu badan tahay, waxaan kuugu shaqaynayaa 100 dirham oo keliya, ee mudane shaqadan waa u baahanahay sii. Laakiinse ninkii faqiirka ahaa oo beeraleyda ahaa muu quusanin, maalin walbana meesha ayuu soo fadhiisan jiray. Ninkii boqorka ahaana wuxuu go'aansaday inuu isaga tago magaalada, maadaama ninkan beeraleyda ah uu dhibay oo maalin walba halkaan uu soo fadhiisto, asagana uusan rabin inuu siiyo wax shaqo ah. Sidaas darteedna ninkii wuxuu go'aansaday safar degdeg ah. Ninkii boqorka ahaa wuxuu iska aaday safarkiisa. Maalmo badan kadib markuu safarka ku maqnaa wuxuu soo laabtay. Ninkii beeraleyda ahaa oo meesha fadhinin aad ayuu u farxay, gurigiisana si nabad ah ayuu ku galay. Ninkii taajirka ahaa wuu fikiray, wuxuuna isdhahay ninkii faqiirka ahaa oo beeraleyda ahaa sidan muuse kaaga tegi laheene, talow maxaa ku dhacay? Miyuu xanuunsaday? Ma shaqo kale ayuu helay? Mise arrin kale ayaa meesha ku jirta? Aad ayuu ula yaabay, muusan islahayn ninkan ayaa si fudud kaaga tagayo. Ninkii taajirka ahaa wuu soo baxay, wuxuuna u tagay beeraleydii kale, wuxuuna weydiiyey, waryaada ma aragteen ninkii beerteyda ka shaqayn jiray? Maya aniga ma arkin, mar hore ayaa iigu dambeysay. Maya aniga ma arkin, waayahan ee xaguu ku maqan yahay. Aad ayuu ula yaabay arrintaasi. Si dhaqso leh waxaa meesha ku yimid nin kale oo beeraley ah.
ninkii boqorka ayaa weydiiyey, wareedha ma aragti ninkii beerteeda ka shaqayn jiray? Haa mudane, waan arkay. Runtaa miyaa? Haddaad aragti ii sheeg xaguu joogaa? Mudane, intii aad safarka ku maqneed ayaa wuxuu sii ilaalinayay ninkii beeraleyda ahaa gurigaaga. Habeen habeenada ka mid ah asagoo meesha fadhiya ayaa waxaa u yimid tuugo. Waxayna damceen inay gurigaaga galaan, laakiinse asagana wuu ka hortagay oo wuu ka celiyey. Aad ayay u garaaceen ee u dileen, wuxuuna joogaa gurigiisa. Ninkii taajirka ahaa wuxuu aaday gurigii ninkii faqiirka ahaa si uu u soo booqdo. Wuxuuna ku dhahay, iga raali ahaa walaal, si xun ayaan kuula dhaqmay. Qaladkaygana hadda ayaan ogaaday. Waan ka xumahay dhaawacii ku soo gaaray. Iga raali ahaw, lacagtaana qaado, isku daawee. Waad mahadsan tahay. Asxaabay, sheekadeeni halkaas ayay ku dhammaatay. Xigmadda sheekadana waxay tahay qof walbo inaad ula dhaqmin si xun. Waayo ma ogid berrito qofkaas inuu ku caawin doono. Asxaabta channelkayga subscribe saara. Fadlan like-ta ha iga akrinina. Commentiga waad mahadsan.